daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar mobilka furada wararka ugu dambeeyay dagaalka u dhaxeeyay madaxweyne lafta gareen isla markaasina ku duray beesha siyaasiyiinta ee habargedir isla markaasina ayaa waxaa soo baxaya jawaabo culculus cabdiraxmaan cabdishakuur oo fariin u diray cabdicasiis lafta gareen kadib weerarkii uu ku qaaday siyaasiyiinta habargedir hase ahaatee beesha habargedir isla markaasina uu hadalka ku duray madaxweyne lafta gareen ayaa ayagana isu soo taraya inay iska difaacaan maadaama madaxweyne lafta gareen oo la safan yahay madaxweyne farmaajo hase ahaatee hadalkii ayaa cirka isku shareeray tan iyo markaasi waxaa soo baxayo hadal haynta ugu badan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa baaq jawaab ah u diray madaxweynaha koonfur galbeed oo xalay jeediyey hadal uu ku weeraray siyaasiyiinta beesha habargedir ee mucaaradka dowladda soomaaliya hase ahaatee afka furtay waxa uu bogeysa rasmiga facebooka kusoo qoray shacabka koonfur galbeed waa dad nabad jecel dadnimo leh ilbaxnimo wada noolaasho iyo dad la dhaqanba leh dadkii lagu laayay 13 December 2018 baydhabo waxaa ka qayb qaatay ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa federaalka ah amarkaana waxaa bixiyay madaxweyne farmaajo sidoo kale rogow iyo dadkii kale la xiray amarkii xurriyadda loogu qaaday waxaa lahaa madaxweyne farmaajo hase ahaatee wixii uu ka digayay ayaa iminka wuxuu ku hadlayaa weli ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur taasoo ula jeedo xasuuqa kismaayo ka dhaca markasta waxaa lagu soo lifaaqa dowladda federaalk Soomaaliya ma sheegayaan xasuuqyada kale ayuu shalay yiri cabdiraxmaan cabdishakuur hadalkiisii wata ayaa waxa uu yiri walaalkay cabdicasiis lafta gareen xilligaas xil ma haynin isaguna amarka dadka lagu laayay ma dhiibin laakiin kursiga dhiig leh ayuu meesha ka qaatay ma ahan in uu daboolo ama uu dafiro ayuu yiri shacabkii la xasuuqay iyo kuwa xurriyadda laga qaaday ee xabsiga ku jira ee waa in uu ka shaqeeyaa ayuu yiri magdhow dib u heshiisin iyo inuu xurriyadooda u soo celiyo dadka xiran isla markaasina baydhabo laga soo qabtay lagu xiray ayuu yiri waa la iska dayi karaa ayuu yiri in la qabiileeyo dooda la xiriirta xasuuqii baydhabo oo indhaha dadka laga leexiyo ciddii dhibka geysatay laakiin waxaa jira mahadhooyin ku salaabsan ayuu yiri oo aan marna laga reebi karin magaca farmaajo sida xasuuqii baydhabo dhiibistii qalbi dhagax cunaqabateyntii kismaayo iyo weerarkii xarunta xisbiga wadajir ee 17 December ee 2017 ka dhacday tan kale al-shabaab qabiil ma leh qolo walbana waa ay xasuuqaan qabiil walbana waa ku jira ayuu yiri waana qalad in la qolo loo saariyo al-shabaab mid ay walaashay wuxuu yiri mid walaashay dhashay ayaa la ii sheegay inuu fariin soo faray isagoo leh abti ilaahay ayaana kala baxsaday oo waxaa beri yeelay Sheikh Xasan ayuu yiri dadkii lagu xasuuqay gaalkacyo waxaa xasuuqay mooryaan beeleed waxayna ahayd fal dambiilayaal waxaashnimo leh oo ay mooryaan geysatay reer gaalkacyo iyo Soomaali oo idil way ka dhiidhiyeen xitaa kuwii ku dhiiran waayay in ay kelmad ka yiraahdaan xasuuqii baydhabo ayuu yiri walaalkeen lafta gareen waxaa kula talinayaa inuusan waqtiga ku lumin difaaca farmaajo ee waqti ha geliyo sidii uu kursigiisa dhiiga uga meyri lahaa dadkiisa la heshiiyo dadka deegaanka ahna heshiisiiyo anigu wuxuu yiri inaguna waxaan diyaar u nahay in aan sidaas oo kale u taageerno ayuu yiri hase ahaatee hadalkaasi ayaa iminka waxaa soo baxaya sidoo kale jawaabyo culculus oo hawada la isku marinayo hase ahaatee haddii aan qodobkaasi kasii gudubno guddiga doorashooyinka Soomaaliya u jawaabay beesha caalamka soona bandhigay 6 qodob isla markaasina jawaab culus siiyay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa jawaab ka bixiyay dalabyadii shalay ka soo baxay beesha caalamka ee ku saabsanaa doorashooyinka Soomaaliya ee 2020-2021 war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa guddiga kusoo bandhigay 6 qodob oo quseeya doorashooyinka ayaa lagu yiri hadaba guddiga waxay soo qoreen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waxa uu ku mahad celinayaa taageerida beesha caalamka iyo ka go'naanshaha ay u muujinayaan inay garab istaagaan guddiga iyo howlgalka doorashooyinka ayaa lagu yiri guddiga wuxuu cadeynayaa in uu diyaariyay howlaha farsamo ee muhiimka u ah ee diyaar garowga hirgelinta doorashooyinka wuxuu guddiga rajaynayaa in arrimaha muhiimka u ah doorashooyinka lala garab istaago sida diyaarinta miisaaniyadda doorashada sugidda amniga ee goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta ayaa lagu yiri dhamaystirka sharciyada lagama maarmaanka ah ee gaar ahaan sharciga doorashooyinka in golaha shacabka ansixiyo waqtigii lagu ballamay si uu saldhig ugu noqdo qaybta tirka
xeerarka doorashooyinka ee horyaala. haddaba waxaa ka mid ahaa qodobadii sida la sheegay, guddiga wuxuu rajaynayaa in nidaamka doorashada ee ku baxa sharciga uu noqdo mid la fulin karo islamarkaana ahaantaana tixgelin gaar ah la siiyo arrimaha soo socda marka go-aan laga gaaro nooca doorashada iyo nooca diiwaangelinta ee la ansixiyo. ayaa yidhi kow, in nooca doorashada la waafajiyo badbaadida dastuurka kumeel gaarka ah iyo sharciga axsaabta. lambar 2, in hirgelintiisu ilaaliyo xuquuqda muwaadinka ka qaybgalaya doorashada tartame iyo codbixiye. ayaa layidhi lambar 3, in guddiga doorashooyinka la saarin mas-uuliyadda fulinteedu adag tahay sida soo saaridda habraaca. ayaa layidhi habraaca astaanta deegaanta doorashooyinka iyo dhowrista qoondada dumarka. ayaa layidhi qodobka 4, in nooca doorashada uusan horseedin khilaaf iyo dagaal, ilaalinaya midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. lambar 5, inuu ilaaliyo xuquuqda dhalinyarada, dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo dadka aan hadda baarlamaanka matalaad ku lahayn. ayaa layidhi lambar 6, in guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka la siiyo fursad oo ku kulan karo nooca diiwaangelinta codbixiyaasha haddii uu arko inuu la jaan qaadi karo duruufaha ku xeeran ama uu saameynta ku yeelan kara howlaha doorashada. ugu dambeyntii waxaa codsanaynaa in guddiga lagu garab istaago waajibaadkiisa dastuuriga ah lana siiyo tixgelin duruufaha uu ku shaqeeyo. ayaa lagu yidhi. xaliim yaray oo hadalkeeda sii wadatay ayaa waxa ay leedahay, dhammaanba waxaan doonaynaa in garab nagula siiyo howlaha doorashooyinka islamarkaasina taasi ay noqoto mid aada loogu farxo. hase ahaatee sidaasoo kale waxaan rajaynayo in madaxweyne farmaajo uu dalka ka dhaco hal qof iyo hal cod. hase ahaatee taasi ayaan la ogeyn siday wax u dhici karto. dhinaca kale, kulan dhex maray wasaaradda amniga dowladda federaalk iyo mas-uuliyiinta gobolka Gedo ee 4 qodob laga soo saaray. kulan ay soo qaban qaadisay wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya islamarkaana ay ka qayb galeen gudoomiyaha degmada iyo saraakiil ciidan ka socday gobolka Gedo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulanka uu gaar wadeen ka ahaa wasiir xigeenka wasaaradda Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa loogu hadlay amniga xuquuqda dalka, waxayna kadib laga soo saaray war-saxaafadeed. hase ahaatee war-saxaafadeedka ayaa sidan u qornay: wasaaradda amniga qaranka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan xog isweydaarsi ah aqoon kororsi ah loogu hadlay amniga xuduudaha dalka u qabtay mas-uuliyiin isugu jira gudoomiyayaal degmo iyo saraakiil ciidan oo ka socda gobolka Gedo. waxaa kulankan u gaar wadeen ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane Cabdinaasir lagu qaado dhiga arrimaha hoose ee socda. qodobka 1, adkeynta wada shaqeynta laamaha amniga heer federaal, heer maamul goboleed, heer gobol iyo heer degmo. 2, tayeynta adeega dowladnimo ee dhinaca amniga iyo bulshada ilaa iyo heer degmo iyo heer tuulo. 3, xoojinta wada shaqeynta dowladda dariska ah iyo AMISOM ee degmooyinka xuduudaha. lambar 4, xoojinta dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ee al-shabaab iyo sugidda amniga xuduudaha dalka. halkaasi ayaa leeyahay falanqeyn dheer iyo fikrad isweydaarsi kadib dhinacyada waxay isla garteen arrimaha soo socdo. 1, in la xaqiijiyo lana ilaaliyo midnimada iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. 2, in sare loo qaado lana xoojiyo wada shaqeynta ka dhexeysa laamaha amniga dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo degmooyinka. 3, in la ilaaliyo lana xoojiyo wada shaqeynta fiican ee dowladda Soomaaliya kala dhexeysa dowladaha dariska ah iyo ciidamada AMISOM dhinaca sugidda amniga ee xuduudaha. 4, in si wadajir ah loola dagaalamo ururka argagixisada islamarkaasina hal dhinac looga soo wada jeesto sidii loo baabi'in lahaa ama loo ciribtiri lahaa ururka al-shabaab ayaa warbixintaasi lagu yidhi. hase ahaatee gobolka Gedo ayaa maalmahan ugu dambeysay waxaa la leeyahay in halkaasi rag gudoomiyaal ahay lagu xirxiray, halka qaar kalena ay kasoo goosteen, islamarkaasi ciidan iyo rag gudoomiyaal ahay ee halkaasi ka goosteen maamulka Jubbaland kadibna kuna biiran dowladda federaalka Soomaaliya. taasi oo xiisad weyn ka jirta islamarkaasina oo madaxweyne Axmed Madoobe ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu kala gooynayo Jubbaland islamarkaasina gobolka Gedo uu rabo inuu ka gooyo gobolka Jubbaland. hase ahaatee wararkayni oo kale oo soo baxaya dib ka daawan doontaan. daawadan nala joog oo subscribe saar Calansida Media.